Axmed Maxamed Islaam Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa hadda waxa uu wajahayaa xaalado adag oo dhanka siyaasadaha ah kuwaasi oo kaga imaanaya dowladda federaalk ee Soomaaliya oo markaan u muuqata inay garabsanayso dowladda Itoobiya. Talaabadan waxay u muuqataa mid dowladda federaalk ee Soomaaliya markaan ay ku qaadayso weerar ballaaran oo ka dhana Axmed Madoobe si looga saaro maamulka Jubbaland. Maalmihii la soo dhaafay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waday qorshe ballaaran iyo sidoo kale waxyaabo badan oo la xiriira sidii maamulka Jubbaland Soomaaliya gudihiisa loo furfuri lahaa. Waxaana dowladdu ay ku guuleysatay inay gacanta ku dhigto degmada Luuq iyo sidoo kale degmooyin kale oo gobolka Gada ka tirsan. Waxaana dowladdu durba bilowday inay tiraahdo qorshahaasi waxa uu qayb ka yahay waxyaabaha dowladdu ay ku doonayso inay kaga qabato doorashooyin qof iyo cod ah. Laakiin falanqeeyayaashu waxay aaminsan yihiin in arrintan ay udubdhexaad u tahay heshiiska qarsoodiga ah ee u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kaasi aan la ogeyn waxa uu salka ku hayo. Tan iyo markii dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya ay gaareen heshiiskii Ankara oo garwadeenka uu ka ahaa Rajab Tayyip Erdogan waxa soo wanaagsanaanayay xiriirka u dhexeeya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ninka lagu magacaabo. Waxaana heshiiskaas uu ahaa mid maalinba maalinta ka dambeysay geed ku soo hoyanayay ilaa iyo markii ugu dambeysay dowladdu ay ku guuleysatay inay gacanta ku dhigto maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddana waxaa muuqata duulaan cad oo qaawan oo dowladdu ay ku qaaday maamulada markaasi Puntland iyo sidoo kale Jubbaland kuwaasi oo hadda markaasi wajahaya cadaadisyo. Laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la aaminsan yahay inay jiraan heshiisyo qarsoodi ah labadooda ka dhaxeeya kuwaasi oo hadda u muuqda inay qaadayaan tallaabooyin gaar ah iyo sidoo kale waxyaabo kale oo muhiim ah. Si kasta ha ahaatee tallaabooyinkaas iyo sidoo kale qorshooyinkaas ayaa u muuqda kuwa hadda kala dhantaali kara Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Hogaamiyahan waayajooga u soo ahaa tan iyo sanadkii 2009 waxa uu soo maray marxalado kala duwan waxaana la soo dagaalamay madax kala duwan habo ka ahaadaan marka la eego madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo geeriyooday, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda marka la jooga. Laakiin markan waxay u muuqataa in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu joogo rafadkii ugu dambeeyay dowladuna markaan ay ka adkaan karto. Marka loo eego qalalaasaha iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee dowladdu haatan ay damacsan tahay waa qorshe ballaaran oo dowladdu haatan ay ka fakarayso sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd hogaamiyahan muddooyinkii ugu dambeeyay markaasi sida weyn la isugu muransanaa. Dowladdu inay hal sano oo dheeraad ay ku darsatay waxa ay qayb ka tahay muddo xileedka dowladdu in uu markaasi gaari karo 2027. mucaaradka oo aan saameyn badan lahayn sidoo kalena dhaqdhaqaaq fiican aan ka wadin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa ay jaanis siisay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihiisu ay qaadaan tallaabooyin xoogan. Laakiin dowladda Itoobiya ayaa la aaminsan yahay in markaasi joker ka tahay xaaladda socota iyo sidoo kale waxyaabaha jira. Ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed ninka lagu magacaabo ayaa dhawaan kulan gaar ah waxa uu la qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana kulankaasi gaar ah loogu lafaguray xaaladaha ka taagan markaasi deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland Soomaaliya iyo sidii dowladda Itoobiya ay u garabsi lahayd dowladda Soomaaliya si gacanta loogu dhigo markaasi maamulka Jubbaland. khayraadka dehan ee ceegaaga markaasi deegaanada maamulka Jubbaland gaar ahaan dhul beereedyada tirada badan ee gobolada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo sidoo kale gobolka Gado waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee caalamku indhaha uu ku hayo. Waxaana muuqata dhowr iyo 10 sano oo Al-Shabaab ay saameyn ku lahaayeen inay soo gabagaboobi karto hadda xaaladda. Waxaana dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah muddooyinkii dambe ay kordhisay weerarada ay ka fulinayso magaalooyin ay adkeyd markii hore in la galo sida magaalada Jilib, Bu'aale iyo sidoo kale magaalada Saako. Laakiin hadda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo muddo dhowr iyo 10 sano ah ku go'doonsan magaalada Kismaayo waxa uu u muuqdaa inay dowladdu ugu imaan karto Kismaayo. Wixii ka dhacay Ras Kamboni iyo sidoo kale qorshihii dowladdu ay ku fashilantay hadda waxaa muuqda qorshe kale dowladdu inay qaadayso. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu u muuqdaa hogaamiye ay u tashteen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Itoobiya. Laakiin waxaan la ogeyn Xasan Sheekh Maxamuud waxyaabaha uu kaga bedeshay Abiy Ahmed in gacanta lagu la dhigo maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaana arintaas ay saacidi doontaa markaasi carqaladaha iyo sidoo kale waxyaabaha ka taagan maamulka Puntland inay sii socdaan. Si kasta ha ahaatee Axmed Madoobe hogaamiye loo wada tashaday ayaa la oran karaa oo dhowr iyo 10 sano kadib laga faramoojin karo Jubbaland Soomaaliya.